Asalaamu calaykum waraxmatullah. Halkani waa Sim Academy. Shalayto waxaan idin joogtay aan soo dhiganay waa casharadii baan ku jirnaa beginner level-ka ahaa. Waxaan soo dhiganay alphabetskii af Ingiriisiga, qaababkii loogu dhawaaqayay ayaan soo dhiganay. Waxaan soo aragnay magacyo badan baan soo dhiganay, haddii kuwa xayawaanada yihiin, haddii kuwa kale yihiin. Maanta waxaan dhigan doonaa alphabets intay u qaybsamaan. Alphabetska waa higaadii. Alphabets divide into two groups. Higaadu waxay u qaybsantaa laba group. Consonants and vowels. Waxay u qaybsantaa consonants and vowels. Consonants waa shibane, vowels waa shaqal. Consonants shibane, vowels shaqal. Haddaba guud ahaan xuruuftu waxay ahayd 26 letters. Iminka halkan consonantska waxaa la yidhaahdaa waxay noqonayaan 21 letters, ama shibanuhu wuxuu noqonayaa 21 xaraf. Shaqalkoodna wuxuu noqonayaa 5 xaraf. 26 kuwa. Haddaba consonantkan iigu horeeyo consonants waxa weeye B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z ama Z. Intaas waa maxay? Waa consonants. Vowels waa kuwan. Waa A, E, I, O, U. Haddii sidaad si fudud aad u xafidid vowelska maadaama yar yihiin, waxaad odhan karaysaa A, E, I, O iyo U. Waayahay. Haddaba waxaa kale oo jira mid saddexaad aad dadku uma isticmaalaan, laakiinse buugagta qaar waxay odhanayaan Y waa isaguna waa category kale ama group kale. Waxaa loo yaqaanaa Y-dana special vowel. Waxaa loo yaqaanaa special vowel. Waa vowelka gaarka ah. Special vowel. Because it could be consonant or vowel. Sababtoo ah waxay noqon kartaa consonant, sidoo kale waxay noqon kartaa vowel. Haddaba waxaad isticmaalnaa inta badan A, sidoo kale an ayaan ka horeysiinaa magacyada mufradka ah. Singular nounska waxaa laga horeysiiyaa ama magacyada mufradka ah A ama an. Markaan A-da ka horeysiinayna waxa weeye oo markuu magaceenu ku bilaabmayo, magaceena mufradka ku bilaabmayo consonant, waxaa laga horeysiinayaa A. Tusaale, table. Table maxay ku bilaabmataa? T bay ku bilaabmataa. Table waxay ku bilaabmataa T. So T halkan waxaan leenahay maadaama table T ku bilaabmato, T halkan ay ku jirtaa, waxaan leenahay a table. A baan ka horeysiinaynaa. Halkan tusaale, orange liin macaan waxay ku bilaabmataa O, wayna ka horeysiino an. Aan nidhaahno an orange liin macaan. Y waan arki doonaa iyada special vowel. Y special vowel. Haddaba exampleskan arag, tusaalayaashan. Singular nouns ayaa halkan noo yaala oo magacyadii keliga ahaa. A ama an ka raacinayna waa raacin doonaa. Okay, halkan kelmadda ugu horeysa book. Book waa buugga. Book waxaa hoosta ka calaamadsan kelmadda ay ku bilaabmato, xarafka ay ku bilaabmato. Xarafka ay ku bilaabmato waa maxay? Waa B. B-na waa consonant. Halkan baad ku noqon kartaa B, halkan igu jiraa. B-na waa maxay? Consonant. Consonantkana maxaan ka horeysiinayaa? A. Marka waxay noqonaysaa a book. Waxay noqonaysaa maxay? A book. A book. Kelmadda inoo xigtaa waxa weeye orange. Orange. Orange waa liin macaan. Haddaba orange waxay ku bilaabmaysaa O. Waxay ku bilaabmaysaa O. O-na waa maxay? O-na waa vowel. Vowel. Vowelkana maxaa laga horeysiiyaa?
an markaa maxaan leeyahay an orange. Table waa miis san hore oo soo sheegnay. Table t bay ku bilaabmaysaa, t-duna waa consonant-kuna a buu qaataa, marka waxaan leenahay a table. kelmadda inoo xigtaa waa ice cream gelato. haddaba ice cream waxay ku bilaabmataa I bay ku bilaabmataa, I-duna waa vowel-kuna wuxuu noo qaataa an, marka waxaan leenahay an ice cream. kelmadda inoo xigtaa waxa weeye broom macnaheedu waxa weeye mafiiqda ayaa af ingiriisi lagu dhahdaa broom. haddaba broom waxay ku bilaabmataa b-na waa maxay? waa consonant ama waa shibanuhuna wuxuu qaataa ama consonant-kuna wuxuu qaataa a, marka waxaan leenahay a broom. waayahay kelmadda inoo xigtaa waxa weeye umbrella. haddaba umbrella waa dalaayad roobka laskaga dhigo, qoraxda laga galo. waxay ku bilaabmaysaa u-na waa vowel-kuna wuxuu noo qaadanaya an, marka waxaan leeyahay an umbrella. kelmadahan oo dhan waa singular, waa wada mufrad. markaa a book macnihiisu waxa weeye buug qura. an orange macnaheedu waxa weeye liin macaan qura. a table waa miis keliya. an ice cream waa jalaato keliya. a broom waa mafiiq keliya. an umbrella waa maxay? waa dalaayad keliya. common mistakes, halkan waxaad arkaysaa common mistakes waa qaladaadka guud ay in badan ardaydu sameeyaan. aan rajeynayo inaad maanta laga bilaabo aanad samayn doonin. So do not use a or an with plural nouns. waxaa lagu yiri hala isticmaalin. do not use a or an, a iyo an hala isticmaalin with plural nouns, hala isticmaalin magacyada jamaca ah. plural nouns magacyada jamaca ah hala isticmaalin. waxaa la doonayaa keliya inaad la isticmaashid sida halkan oo kale singular nouns markay mufradka yihiin. book waa buug qura. okay, markay noqdaan jamaca sida halkan oo kale books way isbedeshay, s baa lagu daray halkaas. books waa buugaag. orange waa liin macaanyo, way badan yihiin. tables waa miisas. ice creams waa jalaatooyin, way badan yihiin. markaas ha odhanin books waxay ugu bilaabmataa b, a baan ka horeysiinayaa maadaamay consonant tahay, books bay noqonaysaa. waa qalad, sababtoo ah kelmadani is no longer singular maaha, waxay isku bedeshay plural, jamac bay isku bedeshay. tan kale u kaalay orange, ha odhanin an orange, ha odhanin o bay ku bilaabmataa, owdu waa vowel, marka waa inaan ka horeysiiyo an, sababtoo ah s baa lagu daray, jamac bay noqotay. marka wax kastaaba markay jamac noqdaan a iyo antoona isticmaali mayno, qaabkaasna waa qalad. a books qalad weeye. an orange qalad weeye. a tables qalad weeye. an ice creams qalad weeye. haddaba special vowel kii aan soo sheegnay, special vowel waxaa la yidhi why is a special vowel? because it could be a consonant or vowel. why waa special vowel? maxaa yeelay it could be waxay noqon kartaa a consonant, shibanay noqon kartaa, or a vowel, ama waxay noqon kartaa vowel, shaqal bay noqon kartaa. haddaba if the singular noun begins with y, it is considered as consonant. haddaba waxaa la yidhi haddii
kelmadda mufradka ah ay ku bilaabmayso y haddii ay ku bilaabmaysaba waxaad u tixgelinaysaa consonant shibane ayaad u tixgelinaysaa. For example, tusaale ahaan yellow waa huruud, y bay ku bilaabmaysaa, hoosta ka calaamadiyey y bay ku bilaabmaysaa. year waa sanadkii, sidoo kale y buu ku bilaabmayaa. yacht doonida shiraaqa leh ee lagu dalxiisaa la yidhaahdaa yacht. haddaba yacht iyaduna waxay ku bilaabmaysaa y. haddaba yellow maadaamay y ku bilaabmayso waa in la yidhaahdo a yellow. year maadaamay ku bilaabmayso y ay consonant tahay, consonantkuna a ii qaato, waxaan leeyahay a year. yacht sidoo kalena maxaan leeyahay a yacht. waay sidii caadiga ahayd maadaamaad aragtid a ama an haddii jeer waxaad u filanaysaa in wax keliya laga sheekeynayo. iminka yellow huruud qura, a year sanad qura, a yacht dooni sharaaq keliya. waay special vowel. If the singular noun ends with y or happens to be in the middle, it is considered as a vowel. halkan waxaana la yidhi if the singular noun haddii kelmadda mufradka ah ends with y ay ku dhammaato y or happens to be in the middle ama ay dhacdo kala bartanka kelmadda, it is considered waxaa loo tixgeliyaa as a vowel. vowel ahaan ayaa loo tixgeliyaa ama shaqal ahaan ayaa loo tixgeliyaa. haddaba ilaa arag markan waxaa la yidhi haddii ay ugu dambayso y ama ay dhexda kaga jirto waxaad u tixgelinaysaa vowel, laakiin hadday ku bilaabmayso waxaad u tixgelinaysaa consonant. waaya halkan ilaa arag pretty macnihiisu waxa weeye qurux badan, pretty qurux badan. haddaba pretty wayda halkay ku jirtaa markan waa taasoo way ugu dambaysaa pretty. markan kale bicycle markana dhexday kaga jirtaa waydii bicycle macnihiisu waxa weeye waa baaskiilada ayaa la yidhahdaa bicycle. haddaba bicycle waydu dhexday kaga jirtaa, markaad waxay u tixgelinaysaa inay tahay vowel ama shaqal ay tahay. sababtaad ugu tixgelinaysid waxay tahay wayda haddii jeer waxaad ogtahay inay xarafka ya ay samaynayso nidhaahda codka ya ay samaynayso xarafka y uu samaynayo. sidaan soo arkaynay yellow ya baad ka dhex dhadhaminaysaa, year sanadkii ya baad ka dhex dhagaysan kartaa, yacht ya baa ku jirta. halkan waxaa isbedelay dhawaqii ayaa u ekaaday dhawaqii shaqalka u ekaaday ama dhawaqii vowelka ayuu u ekaaday. vowelkii haddaan ku xasuusiyo dhawaqyadiisa wuxuu ahaa waa a e i o u soo maha. haddaba halkanna dhagayso pretty e meesha i bay isku bedeshay, waydii waxay isku bedeshay e pretty. bicycle waydina halkan e bay isku bedeshay oo dhawaqii bay yeelatay vowelka. okay halkaas ayay noo joogaysaa maanta. waxaan baranay qaybaha ay u qaybsanto alphabetku qaybaha u qaybsamo. khayr baan idiin rajeynayaa. waa teacher Mustafa oo idin leh take care.